nafku jeceliyo way inta ku eegtaahunoy ku ilmeeyay kaalay amranay nafku jeceliyo way inta ku eegtaahunoy ku ilmeeyay kaalay amranay waxa uu hamigiisu ahaa inuu ka mid noqdo xidigaha caan baxay ee fanka Soomaalida waxaana uu geedigiisa ka soo bilaabay dalka Itoobiya oo ku noolaa isaga oo qaaday heesaha looga xiiseeyo deegaanada Soomaalida waxaana uu soo hayaamay Hargeysa oo ah xudunta fanka Soomaalida ahna meel uu fanaan kasta jecel yahay inuu marun ka heeso kula hadlan ku iman lahaa kaamana taaheen نعكو ما جبشن لحد ما بيرن نعكو ما جبشن لحد ما بيرن كولي يلا بابان نسكو هورلا عبد السلام محمد كامل waxa uu ka hadlayaa sida uu fanka ku soo bilaabay iyo soo guuridda Hargeysa rajadii uu ka qabay fankayga waxaan ka soo bilaabay maxay ahayd magaalada Jigjiga runtii waxaan waliba soo galay markaan fanka soo bilaabay maxay tababar ku soo galay anigiyo dhalinyar fara badan oo maxay ahayd imkaan xasuusto ay kamid ahaayeen Maxamed Jeestiyo Jine Kaboodiyo alona xariiste NRD Nuruddin nin la oran jiray maxay ahayd iyo qaar kale iyo caldaantii marka kabacdi tababartii waqtigii markaan ka soo baxnay ayaan fankii sidii maxay ahayd aan soo bilownay kabacdi markaan fankii soo bilownay waxa dhacday maxay ahayd in adu fankii hadana mid aan isku yar dhacno kabacdi adu wixii markaan adu ninkii isku yar dhacnay ayaa la xiray kabacdi markii dambe hadana wala soo day waxa la yiri waxaad ku xagaas ilaalinaysaa meeshaas kabacdi meeshii ma dhowr bilood ilaalinayay kushukuna wuxuu waqtiga ay guudi maxay ahayd haloo gudbiyo Cabdisalaam wardheer iyo meel kale haloo gudbiyo markaas marka waxa la waayay maxay ahayd ciidan marka aniga aan raaco kabacdi ماشي ما laga dhigay maxay ahayd sameeyama laga dhigay waxa dhacday dhowr bilood markaan joogay inaan markii dambe aan iska soo baxso meeshii oo Hargeysa iska imaato Hargeysa runtii markii aan imidina maxay ahayd sidii aan ka rajaynay oo runtii kaman helin oo caqabado badan ay igu horimid markaas meel fara badan oo macal tagay waxa igu horimid caqabado marka runtii saas wax ay haafankay Hargeysa waxa ku qabsatay duruuf adag oo ku khasabtay in fanaankii heesiisa la dhageysan jiray uu baabuurta masaxo runtii nolosha raflowka waxaan bilaabay markii adu ay ii suurtagal weeday fankayga iyo waxyaalaha aan wateen hamiga u lahaa markaas si aan nolosheeda ku kabo ayaan maxay ahayd aan u bilaabay intan baabuur maristi waxan waayo fadhi iyo maxay ahayd waxaas kuma soo galayaan maxay waxaad masruufan lahayd markaas aan weydiisan maxay ahayd dadka qayrkeedii aan wuxuu weydiisan ayaan u bilaabay hawshan baabuur baad nin koodhanaysaa ninba baabuur meesha soo dhigan waxaad koodhanaysaa maxay ahayd mankuusii maydha ama mankuusii masaxa kabacdi wuxuu koodhanayaa maya ama maxay ahayd ama uu leeyahay buu koodhanayaa maxay ahayd meeshii wixii lagu meedhayay baabuur maristi waan leeyahay ama maxay ahayd ama maya ayuu koodhanayaa kabacdi adigoo rajaynayay dee in maxay ahayd ay xaggaas ka soo galaan wax aad hawsta amaad ku qarayso amaas lahayd gurigaad waxaad u gelisay ya oslahayd waa helaysaa ayaa dhici kartay maxay ahayd markaa inaad heli weydo dadkuna isku mid maaha iska fiican u jiraan oo maxay ahayd markaa baabuur amaad muuqdo wax fiican ku siinay kullay aad fureen uma masna cid qacan qabta ma jirto waayo maxay ahayd dee furii dufalla ay Soomaalidu ayaa wax duuga qof hortay qacan qabta ma helin dhalinyartii maxay ahayd waqtiga aan sameeyayna waxay iska ahaayeen ciyaal maxay iska xafadahooga iska jooga oonan dee waqtigan aanan ku jiro aanan iyagu soo marin oo waxba aan war haydi ya
oo maxay ahayd iskaga soo koray dee adu nolol iska fiican marka aanan dareemin dee aanu tan ku jiro oo sida iyagu yihiin kolkol ay iga soo qaadayeen dee cabdisalaan waxa uu jeclaa in loo fidiyo gargaar si uu uga baxo duruufta hadda uu ku jiro horta nin kastiba hami buu leeyahay anna hami waan leeyahay horta waxaan ka codsan lahaa inkastoonan anu maxay ahayd aanan hargeysaba dhaafinba oon fanaaniin saa waaweyn aanan la kulmin laakiin haddana aan fanaaniin badan aan garanayo ama wasiishinno badan aan garanayo oo uu ka mid ahaa axmed weli oo i ballan qaaday inuu yidhi heesan kuu tumaya oo ilaa wakhtigan hees aan u dhiibo hees uu timoo daaye dee aduu maxay ahayd ana waxbaba ka helin dee gacanqabad aduu caqaduu waa iska fara badan yahin laakiin haddii aan heli lahaa waxay gacan qabta way ficlaan lahayd guulad maxamed aadan guulad cunaabi telefishinka saab hargeysa